adduunku waa habeen iyo maalin nolosha ku xigta adduunkuna waa taqabriga oo ah habeen subaxeeduna uu yahay maalinta qiyaamaha muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa maalinta magacyada badan ee Rabbi subxaanahu wa ta'ala quraanka inoogu sheegay ee qiyaamaha waniga hulaalkan Cabdimajid ku soo dhawow muuqaalkeena maanta maalintan aan habeenka lahayn waa maalin uu isbedel ku iman doono ama ku dhacayo adduunkan waa maalin muuqaan maanta adduunka ku naqaano ama aan ku garanayno u bedelmayo maalinta Rabbi subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay in hooyo caloosha ku siday ilmo yar uu ka soo dhici doono wuxuu ku tilmaamay sidoo kale Rabbi subxaanahu wa ta'ala in hooyo nuujinaysa ilmo yar ay ilaawi doonto ay ka dhaqaajin doonto ilmaha yar ee nuujinaysay Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaad arkaysaa dadka oo la mooday inay shirqaansan yihiin mana aha kuwa sakhraansan balse dhibta iyo shidada iyo adayga maalinka yaala ayaa dadkan ka dhigaya kuwa sakhraansan ama la mooday inay sakhraansan yihiin waxa Rabbi subxaanahu wa ta'ala inoogu tilmaamay quraanka magacyo aad u tiro badan oo ku magacaabay maalintan magac kastaana uu sheegay ama uu xambaarsan yahay dhibta iyo adkaanshaha maalinka yaala magacyadaasna waxa kamid ah maalintii wax garaacaysay maalintii xaqiiqda ahayd maalintii dadkii wareerinaysay nabigeena maxamed aha isagoo inoo tilmaamay weynida iyo culayska maalinta yaala ayaa waxa uu inoo sheegay in anbiyada calayhi salaam dhamaantood oo ahaa dadka hormoodkoodii inay ku koomi doonaan maalinta nafsi oo ah tayda maalinta rasuulkeena maxamed loo yimaado marka u dambaysa waxaan wada ogsoonahay in bini'aadamku marka uu naxo in garaaca wadnihiisa uu aad u sare kaco kadib aad maqasho dhawaaqa uu bixinayo balse maalintaas waxaa dugdugtiisa ama dhawaaqa wadnaha qofka ka maqlaysa dhuunta ay quraanku inoo tilmaamay in dhuunta laga maqlayo وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين waxa uu markale Rabbi subxaanahu wa ta'ala quraanka inoogu sheegay in maalinkan ay tahay maalin uu ciroobi doono ama ciraysiin doonta ilmaha yar ee markaa dhashay oo maalin aanu jiri doonin xidhiidhka walaalnimo qaraabanimo iyo tolnimo ay quraanku inoo sheegay iska badaa inuu daneeyo waa maalin uu ka firdhan doono qofku xigtadiisii iyo xigaalkiiba waayo qofkiisa sababtu qof kastaana u cararayo dadkiisa ama cidii ugu xigtay Rabbi subxaanahu wa ta'ala ayaa quraankiisa inoogu sheegay oo inay yiri qof kastaba tiisa ayaa mashquulisay xaalka qofka Rabbi ka gaaloobay maalinta waxa uu ku tilmaamayaa Rabbi in hadii la oran lahaa dadkii uu jeclaa hal cadaabo oo adiga hal lagu sii daayay inuu aqbali lahaa adkaanshaha maalinta uu ku sii deyn lahaa wax kasta oo jeclaa hadaba dhararka maalinka waxa uu Alle inoo tilmaamayaa in ay tahay maalin ka dheer maalmaha aynu garanayno dhararka maalinka waxa Alle ku tilmaamay 50,000 oo sanadood arkida ay u arkaan dadku adduunkii markay ku guda jiraan maalintan adag waxa uu la noqonayaa adduunkii ay soo noolaayeen 60 sano in uu yahay barqo ama gelin dambe Alle inoo tilmaamayo ugu dambeyntiina waxaan ku soo gabagabeynaa muuqaalkeenan waxaynu ku soo socotaa maalin aad u adag ayeenan isku ilaawin adduunkan faaniga ah ee dhamaanaya ee aynu maankeena ku mashquulino si aynu u badbaadi lahayn maalinta adag ee nagu soo socota wassalaamu calaykum